waayitaankeedii waxaa kasoo wareegatay 5 sano ilaa ay haddana hooyadeedii kama aysan quusanin oo waxay rajo ka qabtaa maalin maalmaha ka mid ah inay u soo laaban doonto gabadheeda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waan idin salaamay dhammaan walaalaha meel walbaad joogtaan. waa anigoo ah walaashiin Sumay Maxamed YouTube channelka aad daawanaysidna waa Sumay Daacad. kusoo dhow haddaa ku cusub tahay subscribe saar. dhacdada maanta aan muuqaalkan uga hadli doono waxay dhacday bishii September 2017 waxayna ku dhacday gabadhan halkan ka arkaysaan oo lagu magacaabo Hannah Abb. kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. bishii September 2017 waxay ahayd xilli duufaano xun ay ku dhufteen jasiiradda St. Thomas ee ku taala isla jasiiradda kale ee lagu magacaabo Virgin Island ee dalka Mareykanka. oo ku dhuftay duufaanta Irma ayaa haddana waxaa soo baxday in duufaan labaad ay kusoo wajahan tahay. maalimahaas ayaa waxaa la bilaabay isdiyaarin. dadka degnaa jasiiradda yar waxay bilaabeen inay ka guuraan jasiiradda, balse mid ka mid ah dadkaasi ayaa waxaa dooratay inay joogto. waxayna ahayd Hannah Abb oo da'deedu ahayd markaasi 32 jir. waxayna macluumaad ka ahayd iskuul lagu magacaabo Montessori School oo ku yaala jasiiradda. waxayna ku tilmaameen dabeecad ahaan nolosheeda inay ahayd mid firfircoon, cabsi la'aan ah oo geesi ah. adiga waxay ahaataba taasi hadda muhiim nooma ahane tilmaamaha laga bixiyay unbay ahayd. culeysyada iyo saameynta looga baqayay duufaanta ayaa waxay u ekayd mid aad u culus. iyadana waxay u diyaarinaysay fasalkeeda duufaanta labaad. iskuulka waxaa loogu diyaargaroobayay duufaanta. dadkii wada shaqeynta ka dhexaysay Hannah waxay arkeen inay mamaqan tahay oo dhaqankeeda oo dhanba nooc kale uu yahay. qof xanuunsan oo kale inay u dhaqmaysay si degan oo haddana aamusan oo qoftii firfircooni iyo lagu ogaaba inay mood ku jirto iyadoo dhanba. haddana intooda badan waxay isdhaheen amay duufaanta iyo waxyaabaha la sheegayo ay xoogaa culays ku noqotay. haddaba 14 bishii September 2017 xilli subax ah oo u dhow waqtiga 2 saac subaxnimo ayaa Hannah soo kacday oo albaabka kasii baxday. saaxiibteeda ayaa arkaysay markaasi waxayna istiri maanta dhaqsi ayay shaqada gali rabtaa maadaama xilligii awal bixi jirtayba aan sidaasi uga sii hormarin. aragtidaasina waxay noqon doontaa ama ay noqotayba aragtidii ugu dambeysay oo la arko Hannah. maalintii xigtay Hannah way ka maqnayd kulan ka dhacay iskuulkii ay baraha ka ahayd. waa ay isweydiiyeen dhammaan dadkii isla shaqayn jireen iyo asxaabteeda. saaxiibteeda Maggie oo ah gabadhii ugu dambeysay oo aragtay ayaa arrintan macquul la noqon weyday oo xoogaha la weynaatay. waxayna isku dayday inay wacdo laakiin wax jawaab ah ma aysan helin. kadib way soo baxday oo waxay soo ag istaagtay guriga Hannah. waxayna aragtay in gaarigeeda uu meesha oolin. xoogaha walwalkii ayaa kusii kordhay. waxayna bilowday inay la xiriirto saaxiibada kale ee Hannah iyo qoyskeeda ayna isugu yimaadeen goobtii. qofba fikir ayuu soo jeediyey. biyaha dhinacan laga fiiriyo, dhinacan kale laga fiiriyo, adiga dhinac walba waa laga waayay. kadib Maggie ayaa waxay qabatay kulan waxaana dadkii ka codsatay in qofba si gaar ah uu uga raadiyo meelaha ay ugu jeclayd inay ku dabaalato xeebaha, gaar ahaan xeebta lagu magacaabo Safari Beach oo ahayd meesha ay ugu jeceshahay inay ku dabaalato Hannah. haddaba xilligan raadinta lagu jiro xeebta waxay u muuqataa meel musiibo xoogan ka dhacday. duufaanta ayaa waxay u badashay meeshii quruxda badnayd meel gebi ahaanba burbursan, khariban oo baaba ka muuqdo oo haddana cidlo ah. balse meesha gawaarida la dhigto ee baakinka ayaa waxaa laga helay gaarigeedii oo gudihiisana ku jireen boorsadeeda, baasaboorkeeda, aqoonsigeeda iyo xoogaha lacag kaasha oo $100 gaaraysay. sidoo kale goob xeebta ku taala oo ah meel alaabaha la dhigto oo alaabaha xeebta, dharka iyo waxyaabaha la midka ah oo dadka goobtaasi yimaada isticmaalaan ayaa waxaa laga helay dharkeedii, kabaheedii, furaha gaariga iyo furyaal kale oo ay wadatay oo intay si fiican isugu duuduubtay ay meesha dhigtay. 2 maalmood marka ay sidaasi ku maqnayd waxaa bilaabatay raadinta rasmiga ah. saaxiibadeeda iyo saraakiisha waxay ka raadiyeen dhammaan agagaarka jasiiradda iyagoon helin wax raad ah ama xitaa calaamad yar oo ku saabsan Hannah. intii lagu guda jiray raadinta Maggie waxay ogaatay in tani aysan ahayn markii ugu horeysay oo Hannah la waayo oo ay tahay tan markii saddexaad oo la waayo. labadii shil horena waxay ku dhaceen
xaalado isku mid ah. Markii ugu horeysay oo Hannah la waayo waxay ahayd dabayaaqadii bishii Sebtembar ee 2008 markaasi oo da'deedu ahayd 23 jir, waxayna ahayd maalintii ugu horeysay shaqadeeda macallinnimo ee magaalada New York. Maalintii xigtay ma aysan soo xaadirin shaqada, taasi oo sababtay in isla markiiba uu bilowdo baaritaanka ama raadinta qof maqan. Waxaana loo raadinayay markaasi afduub, yacni kiiska waxaa loola dhaqmayay sida afduub qof ku maqan oo kale. Waxaa la waayay markaasi iyadoon wadanin wax boorso ah, aqoonsi iyo lacag toona. wax waliba gurigeeda ayay kaga tagtay. Markaasi way luntay iyadoona wax raad ah lahayn. 9 maalmood ayayna maqnayd oo la raadinayay. Intii lagu guda jiray raadinteeda oo 9 maalmoodna ay sidaas ku maqnayd, markaas ayaa booliiska waxa soo wacay nin ay iskuulka isla dhigayeen oo isna iskuulka ay macallin ka tahay macallinka ahaa. Wuxuuna sheegay inuu ku arkay dukaanka Apple. Wuxuu kaloo sheegay inuu u tagay oo weydiiyay inay tahay Hannah maqan iyo in kale. Waxayna u sheegtay inaysan ahayn Hannah. Isagana wuu hubay in qofka uu la hadlayo ay tahay Hannah ayna ka maqan tahay reerkeeda oo la raadinayo. Taasina jahwareer kale ayay abuurtay. Wuxuuna ku wareeray ninkii in Hannah ay been u sheegayso iyo in kale, ama inaanay rabinba in la helo. Sidaas ayuu ku go'aansaday inuu waco booliiska. Booliiskuna waxay ka heleen CC kamerada dukaanka muuqaalkeeda, wayna xaqiijiyeen inay tahay Hannah oo ay joogtay dukaanka. Si ay u gasho akoonkeeda Gmail-ka, wayna xaqiijisay inay nooshahay. oo yacni qofkii akoonkiisa galay passwordkiisii geliyay way caddahay inuu nool yahay ama akoonka uu isaga isticmaalayo. Su'aalo badan ayay isweydiiyeen. Maxay ninka ugu sheegtay inaysan ahayn Hannah? Maxay sameynaysay? Maxayna isku qarinaysay? Maqnaanshaheedii koobaad 2 toddobaad markii la weysanaa ayaa waxaa lagu arkay goob Starbucks ah, laakiin waa la waayay haddana markay askarta yimaadeen. Maalintii 20aad oo ka soo wareegatay maqnaanteeda ayaa nin doon kabtan ka ah oo lagu magacaabo Ferry ayaa waxa uu arkay madax dumar oo ku foorara biyaha, oo yacni wajigeeda biyaha saan u dhex dabaalanaya. Doomo kale oo gargaara ayuu u wacay. Aad ay ugu naxeen, way soo qaadeen doonta ayayna soo saareen. Waxay u maleynayeen inay dhimatay gabadha, way ku dul ooyeen xitaa. Waxaana la geeyay cisbitaalka iyadoo aad u liidato xaaladeeda caafimaad, laakiin xogaa kadib way soo roonaatay. balse ma aysan awoodin dhakhaatiirta inay u sheegto qofka ay tahay iyo waxa ku dhacay intaba. Waxaana laga helay cudur naadir ah oo sababa dhaawac maskaxda soo gaaro, oo dadka qaba cudurkaasi ay isaga dhaqmaan si caadi ah oo aan la fahmaynin. Ugu dambeyntii Hannah waxay xasuusatay magaceeda, waxayna shaqaalaha siisay telephone numberka hooyadeed. Hooyadiina saacado yar kadib way imaaday. Hadalkii ugu horeeyay oo Hannah tiri wuxuu ahaa, maxaan u quusay aniga. 3 toddobaad ee ugu dambeysay wax xasuus ah ma aysan lahayn. Waxa ugu dambeeyay oo ay xasuusatay waxay ahayd inay ordaysay maalintii la waayay. Bas aad ay ugu xumaadeen dhacdadaas, iyada iyo reerkeedaba fajac ay la noqotay. Xitaa waxay ku fikirtay inay bedesho magaceeda. Sanad kadib dhacdadii, Hannah way isaga guurtay New York oo dhanba, waxayna degtay Maryland, halkaas oo ayna ku noqotay macallimad wax ka dhigta dugsiga Montessori. aad ayna u jeclayd iskuulkaas iyo shaqadeedaba, oo yacni way u firfircooneed. 100% aad ay u xaadiri jirtay shaqadeeda ilaa laga soo gaaray bishii Sebtembar ee 2011. Xilli subax ah ayaa hooyadeedii wacday booliiska, waxayna u sheegtay in mar kale la waayay Hannah oo aysan tagin shaqadeeda. Waxaana la bilaabay raadinteedii. Intii uu socday baaritaankeeda iyo raadinteedii, waxaa la helay boorsadeeda oo taalo meel wado bannaan ah. Waxaana ku jiray boorsada telefoonkeedii, boorsada yar ee lacagta iyo furyaal. Maalinnimadii xigtay, ku dhawaad saqdii dhexe ee habeennimo, Hannah hooyadeed ayaa waxaa laga soo wacay lambar aan la garanaynin. Waxaana lagu yiri, hooyo, Hannah mar kale ayaa waxay gashay xaaladda foggy. Foggy waa cudurkii naadirka ahaa ee looga soo helay cisbitaalka. laakiin markaasi iyada ayaa bannaanka uga soo baxday biyaha. Waxayna maskaxdeeda ku soo heshay iyada oo fadhisa meel biyo mareen ah oo agteedana uu yaalo gaari. Inta ka horeysay xusuus dhan ma lahayn. Waxayba ku soo hindha furatay iyada oo meel biyo mareen ah dhex fadhiso, gaarina uu ag yaalo. Marka labaadna iyada wax fikir ah kama haysan sida ay halkaasi ku tagtay iyo inta waqti oo ka soo wareegatay toona.
yacni waxba kama aysan xasuusanin. waxay awood u yeelatay in lafteeda ay kasoo baxdo keynta, waxayna heshay markii dambe dhismayaal iyo goobo ganacsi. waxay taleefonka adeegatay qof aanay aqoonin, sidii ayayna dad kula soo xiriirtay. dhacdadii labaad kadib waxay hooyadeedii u sheegtay inay dib ugu soo laabatay waayaheedii New York, waxayna si cad u xasuusatay in biyaha loo soo jiido, sababtuna aysan garanaynin. yacni waxay sheegtay ama ay ogaatay inay jiraan wax biyaha xaggooda u jiida ayada. midda la yaab kale ayaa waxay tahay dhammaan 3 waayimood ee la waayay waxay dhaceen bisha Sebtembar. maalmo ka hor waayitaankeedii ugu dambeeyay ee 2017 asxaabteedii waxay ogaadeen inay u dhaqmaysay si aan caadi ahayn oo yacni wax ka qaldanaayeen. mid ka mid ah asxaabteeda ayaa waxay u sheegtay inaysan jeclayn dayrta, yacni xilliga dayrta inaysan jeclayn. dhammaan asxaabteeda oo xilligaasi la joogay jasiiradda midna ma uusan ogeyn waayaheedii hore ama taariikhdeeda. qoyskeedii aad bay ugu naxsanaayeen inay meel fog u guurto, laakiin Hanaa way qososhay baa la yiri markay soo degtay jasiiradda. waxayna tiri waa jasiirad yar oo aad u qurux badan, ilaa iyo intee ayaan tagi karaa. 6 maalmood ka hor waayitaankeedii ayay joojisay isticmaalka taleefonkeeda. dhammaan isbedelada ka muuqday dadkii ka agdhowaa waxay u haysteen culays ka soo fuulay soo wajahidda duufaanta. sidoo kalena waxay ahayd qof dabaasha aad ugu dheereeya oo u dabaalan yaqaana. inta aan la joojin raadinteeda 2 maalmood ee u dambeysay waxaa loo raadiyey si aad u weyn oo quusasho ah, waxaana lagu raadinayay doomo iyo helikabtaro. dhammaan 80 jasiiradood oo agaarkaasi ahaa waa laga baaray waana laga waayay, xitaa lama helin wax yar calaamad ah ama raad oo ku saabsan Hanaa. hooyadeedana waxaa ilaa iyo hadda si joogto ah usoo booqataa jasiiradda St. Thomas. qof waliba oo jasiiraddaasi joogana wuu yaqaanaa siday u eg tahay Hanaa. hooyadeedina waxaa weli rajo ka qabtaa in maalin maalmaha ka mid ah ay soo laaban doonto gabadheeda, ayna xasuusan doonto cidda ay tahay. ugu dambeynna sawirkan ayaa baraha bulshada meel walba laga dhigay, iyadoon la codsanayo in qofkii helo wax macluumaad ku saabsan uu la soo xiriiro lambaro gaagaaban oo meesha lagu soo qoray. ugu dambeyn muuqaalkeena maanta halkan ayuu ku egyahay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. fadlan ilowin muuqaalka inaad like saarto aadna sii share garayso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.